wafdi ballaaran uu hogaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa maanta Muqdisho soo gaaray waxaana garoonka Aadan ee Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno uu ugu sareeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo siyaasiyiin kale Cali Maxamed Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay waxa uu sheegay in socdaalka uu ku yimid Muqdisho ay tahay casuumaad uu ka helay dhigiisa Soomaaliya Professor Maxamed waxaana uu sheegay in maalmaha soo aadan Muqdisho uu joogi doono isla markaana khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ku horjeedin doono xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya sabtida soo aadan sida qorshuhu yahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Guddoomiyaha aad oo mahadsantahin inshallah. Au nom donc des parlementaires, au nom de la population de la République de Djibouti et à mon nom personnel, je tiens donc à vous remercier infiniment donc pour l'accueil que vous nous avez réservé. Nous sommes, comme vous l'avez si bien souligné, dans notre deuxième pays et nous sommes avec nos frères et sœurs donc, de la Somalie et nous sommes fiers aujourd'hui d'être ici avec vous à Mogadiscio. Et ce ne sera pas la première visite, donc on va essayer d'intensifier, de solidifier donc, nos relations entre les deux États, entre les deux peuples. Et nous avons la même langue, la même culture. Et aujourd'hui, donc, nous sommes les représentants donc, de la population, nous sommes la voix du peuple. Et une bonne relation, donc, c'est des relations de peuple à peuple. Aujourd'hui, nous avons concrétisé ces relations. Avant moi aussi, mon prédécesseur donc, avait effectué une visite officielle ici à Mogadiscio même pour renforcer ces liens. Nous sommes aussi sur cette trace de renforcer et de solidifier nos liens historiques. Et je tiens donc à vous remercier infiniment pour cet accueil. Et Inch'Allah, donc, nous allons travailler main dans la main entre parlementaires, entre populations, entre l'exécutif et le législateur aussi. Et merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé. Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed oo isaguna hadlay waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay isdhexgalka iyo walaaltinimada ka dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Jabuuti booqashadan uu ku yimid Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudana Guddoomiye aad baan ugu faraxsanahay ku soo dhaw dalkaaga aad baan magaca golaha shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed iyo magaca magaciisa shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan kugu soo dhaweynayaa dalkaaga ku dhihi maayo dalkaaga labaad waxaan kugu soo dhaweynayaa dalkaaga ahlan wa sahlan dhammaan xildhibaanada golaha wakiilada qaranka Jabuuti qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada dalkiina timaadeen walaalina u timaadeen ha ismartiyeen Aadan Muumin goobjoog Muqdisho